Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal soo dhawaada janaalkeena subscribe saara Better Option Academy. Waa walaalkiin Injineer Nuur Cabduqaadir Ibraahim oo halkan maanta idinkugu soo jeedin doona engulfing candle sida loogu trade gareeyaa. Halkan baan ku caddeyn doonaa insha Allah. Soo dhawaada. Cashirkii ka horreeyay waxaan ku sheegnay candleska, noocyada candleska waan soo koobnay ilaa qaar baan sheegnay. Marka maanta waxaan abaaraynaa engulfing candle siduu u yaalaa. Shaxdan hadda waxaa noogu muuqdo bearish engulfing candle ayaa noogu muuqdo. Waa labadan candle markay iska ag samaysmaan waay. Candle oo sell ah iyo candle yar oo buy ah markay iska ag samaysmaan ayaa waxaa la yiraahdaa bearish engulfing candle. Waa kana inta uu ka samaysmay, intana uu ka samaysmay. Marka waxaad entry-ga aad ka galaysaa candle-ka ku xiga ayaad galaysaa automatic. Suuqan horey buu u soconayaa, sell ayuu kusii soconayaa, horey baad usii galaysaa saad u jeedaan soo daadanayaa. Markale haddana waa kinta uu ka samaysmay, entry-gaada halkan baad ka dhiganaysaa, waa sii galaysaa. Kan waa bearish engulfing candle ama sell waay, oo marka oo sell yahay oo hoos usoo daadanayo, oo down trend uu yahay hoos usoo socdo waay. Goorme uu yahay bullish engulfing candle? Bullishkana waa kana, waa marka uu buy yahay oo uptrend uu yahay oo kor u soconayo waay. Waa kana bullish. Waxaa samaysmay candle yar oo sell ah iyo candle yar oo buy ah. Candle yar oo bearish ah iyo candle yar oo bullish ah. Candle weyn oo bullish ah ayaa samaysmay, bearish ayaa samaysmay. Marka candle-kan, labadan candle markay samaysmaan waa ujeedaa suuqa uu sii dhaqaaqayaa, horey uu sii soconayaa, buy baad usii galaysaa, horey buu usii dhaqaaqayaa. Marka lagu samaysmay wuu sii soconayaa. Waa kana marka lagu samaysmay haddana wuu sii soconayaa. Bullishka wuxuu sameeyaa mararka qaar reversal buu sameynaa, inuu dib usoo laabto ayuu sameynayaa, dib ugu soo noqdo meeshiisa hore, inuu dib ugu soo noqdo buu sameynayaa. Midka bearishkana inta badan wuxuu sameeyaa continuation, inuu hor u socdo. Mararka qaar asagana reversal uu sameyn karaa. Marka aan tagno suuqeena, aan tagno haddii aan heli karno ama candleskan hadda waad u jeedaan waan haysanaa maxaa bullish engulfing candle. Kana waan haysanaa sawirkiisa, waa kana waan haysanaa candle yar oo iyo candle weyn oo buy ah haysanaa. Midka bearishkan aan fiirino, lacagtan midka bearishkana waa kana, candle yar oo bullish ah iyo candle weyn oo bearish ah waa isla. Midka yar waa buy, midka weynna waa sell.
marka labadii candle saas baan ku helnay. Marka adigana tijaabi, sawiradaas isku fiiri, internetka gal, sawiro badan baar raadi, waad heli doontaa. Marka waxaan sameyneynaa raadineynaa meel jaanis oo ka jiro baan kareeneynaa. inta xoogaa jaanis lagu muuqdo suuqan baan sugeynaa. Markuu tago salaries area ayaan sell u sameynaa insha Allah. Nala suga buy socda hadda lacagtana waa $1 no winay. weli soo sugeynaa. inta baan doonada insha Allah profit nagu aan rajeyneynaa. oo noo socdaa saka noo dhiman insha Allah. TB-ga nagu dhaco baan rajeyneynaa profit. alxamdulillah profitka noogu dhacay sidaad u jeedaan. codkii baa naga xiran, codkii ma aanan maqlin dhawaaqiisa. profit wuu noogu dhacay, waxaan faa'iidnay $47. marka walaalayaal casharkeena maanta halkaas baan kusoo gabagabeyneynaa oo aan uga hadlaynay engulfing candle and bearish candle. candleka ku tilmaamayo engulfingka oo sellka ah iyo midka ku tilmaamayo buyga ah. halkaas baan maanta kusoo gabagabeyneynaa. akhyaarta cusub soo dhawaada, janalka subscribe saara. waa walaalkiin Engineer Nuur oo idin leh horumar wanaagsan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.